marka hore diinka School of Science-ka jaamacadda caalamiga ee Somali International University Dr. Samatar Public Relations-ka jaamacadda Ahmed Hadi dhammaan ardayda jaamacadda Somali International University waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh runtii sharaf ayay tahay inaan kulankan maanta halkaan aan jaamacaddan aan halkaan aan isugu nimaadno oo mowduuc muhiim ah ee jaamacadda ii sheegto inaan idinla wadaago mowduucaas oo ah empowering youth shaping peace Somali's future runtii in dhalinyarada la dhiirigeliyo si nabadeynta looga shaqeeyo mustaqbalka dalkeena marka waa topic macnaha mowduuc aad u ballaaran weeye marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago si anigu arko fikirkeyga laakiin ana aad waxaan u jeclahay maadaama aan waqti gelino inaan su'aalo iyo jawaabo aan isweydaarsano si aan u fahanno mataqaanaa mowduuca wuxuu yahay waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo sida sharafta leh uga soo qayb gashayna waa idinkaga mahadcelinayaa haddii inaan ka hadlan rabno mustaqbalka waxaa muhiim ah inaan ka hadalno wixii la soo dhaafay wixii la soo maray past macnaha mustaqbal kama hadli karno haddaanan ka hadlin macnaha waxa weeye wixii past-kana ka hadlin macnaha waa very muhiim weeye cid ka wanaagsan mustaqbalka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya inay hagaajisana oo maanta gacmihiina dhalinyarada maanta gacmihiina ay ku jiraan mustaqbalka macnaha taas inaan isla ogaano weeye mustaqbalka gacmi Soomaaliya sida noqon lahayd su'aasha weyn oo aan rabo in ilaa hadda muddo dheer laga jawaabayo su'aashaas waheed dhammaantii halkan u fadhina waxay tahay maadaama mustaqbalan ka hadlayno Soomaali noocee ayaan rabnaa annaga maxaan rabaa inaan xoogaa taas sii qortiin aan rabaa Soomaali noocee ayaanu rabnaa ila mustaqbalkii baa tiin dhalinyarada tiin moogta Soomaali noocee ayaan rabnaa sidaas laaligeed marka qofka marka hadaartid inaa meesha u socotina ogaatid waxaa muhiim ah inaa ogaatid meesha ka timid idinkuma dheereynaysa la socotiin dalkeena Soomaaliya taariikh dheer ayuu lahaa halgankii xornimada kadib laakiin aanu saddex waqti ayaan xoog saarayaa saddexdaas waqti waxa markii aan xornimada qaadanay oo aan ugu yeerayo First Republic jamhuuriyaddii markii ugu horeysay jamhuuriyaddii koowaad oo ahayd xilliyadii from 1960 1960kii ilaa 1969kii dalkeena Soomaaliyeed wuxuu ahaa dalkii ugu horeeyay ee Afrika ah oo si nabad ah madaxweyne kursigiisa ku fadhiyay inta doorasho looga adkaaday ku wareejiyay sharci ka adkaaday doorashadii dhacday 1967 dal Afrika ma dhicin si peaceful transfer of power yiraahdo si nabadgelyo leh macnaha fiir meesha ka nimidna ogaanaa muhiim ana dal waxa weeye taariikhdeena waa ina macnaheena ogaatiin waa aad muhiim u tahay 1967 doorashadii u dhaxaysay madaxweyne aadan cabdulla cusmaan iyo wasaarihii hore markaas Cabdishiic Ali Sharmaarke markii madaxweyne aadan cabdulla cusmaan laga badiyay si sharaf leh ayuu dimuqraadi ku jirto ayuu ugu wareejiyay awoodii ugu wareejiyay mataqaanaa madaxweynaha Cabdishiic Ali Sharmaarke waa wax aan dhammaanteen rabin inaan ku faanno way sharaf bay noo tahay inaan dal halkaan waqtiga gaarsinaa dal Afrika ugu horeeyay ayaan nahay maanta meesha lana u jeedaa marka 1960 ilaa 1969 marka waxaan ahayn dal dimuqraadi ah haddana kadib 1969 dalka waxa ka dhacay kacaan oo revolution macnaha kacaan baa ka dhacay dawlad military ugu yeerana Second Republic oo ah jamhuuriyaddii labaad oo maxay jirtay waqtigeeda 1969 ilaa 1991 muddadaas dheer marka oo 21 sano oo dalku ku jiray kala talisnimo xisbi macnaha la yiraahdo autocratic leader oo dictatorship laakiin military ahaa dalka waxyaabo fara badanna waa noo qabsoomeen waxyaabo fara badan oo naga qaldameen mar labaad mar walba waxay xasuusinayna waxay tahay dhalinyarada maadaama tiin mustaqbalka dalka tiin halkaan ay tahay meel ka wanaagsanaan lahayd inaan mowduucan maanta kaga hadalno oo ku saabsan mustaqbalka dalka iyo nabadeynta iyo sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada kulligiin halkaan markaan fadhisiin waxaa idinku jira desire awood rabitaan aad doonaysiin mataqaanaa
maxaan dalkan u qaban karnaa halkee dalkan gaarsiin karnaa waa wax ku jiray awowyaashiin waa wax ku jiray dhalinyaradii hore oo idinkeedii la mid ahaa waqtigii hore kale mar walba inaad rabtiin Soomaali noocay aan doonaynaa Soomaali noocay aan rabnaa waa wax ma taqaana mar walba nagu jirta weey awowyaashiin waxay ku riyoon jireen oo waxay riyaas ahayd hal Soomaaliya oo wada jira oo midaysan awood u baahsan tahay kadib wadankii waa la socotiina dagaal sokay ayuu galay in fara badan oo Soomaaliyeed wadankan dagaal sokayo oo adag ayuu maray dad aniga aan kamid ahaa waa dadka hadda ka sheekeynaa inaan waxay noqdeen wadankan aan anagoona rabin aan rabitaankeena uga tagno aan u noqono ma taqaanaa wadanka qaxna qaxooti noqono ma taqaanaa 1991 macna taariikhdaas kadib wadankii Yigreel isku day fara badan kadib ayaa la sanadkii 2000kii ba waxaan ugu yeerayaa Third Republic oo tahadan ku jirnaa macna taas aan ka dan leeyahay Third Republic jamhuuriyaddii saddexaad carta la isugu tagay سيد ودك دب لو يقليلا وصل عبد القاسم صلاح حسن وصل دورتي مدحونها إلا يهد مركز حلقة 2000 إلا هذا 2018 كجرنا وحلو جرا ذلك أحسديد دل كان أن يستاجنا سئو مستقبل كيس ونكسن هذا ومد الصومال شعب الصومال وهلان دولة نما أقلنته وشعب كان كتر جنت بهذا الشعب تاسوي واحد أسعنا ضمانته أسعنا تاسوي معناها ما أنت هل كان واحد أتاجنها يعني معناها إن هو استاجنها جامعة international سمان international university أو تاجنها واحد هاي إذن جيد واحد إذن جيدا أحسن السين أنا غير ما تقانا مركن قربها كور أنا بدنا مستقبل كي أنت بدنا واحد تابتي سوكري جامعة وقصوا بحي كسو جورس كسو كوري أنت بدنا واحد ذلك أمريكان كان جوجوي لكن ولقى الله سيدا سوكر إذن كيجي دينه وكلا يا مرة بحد يجري ربطان يقول جرو waxay tahay war dalkii awooyaashay aabihii aan ka nimid dalkii aan ku dhashay sidee dalka ugu noqonaa oo umadii aan dib ugu noqonaa oo aan dalkaas aan ula wadaagnaa oo dalkii aan dib ugu noqdaa u qabtaa taas aan ka fikir jiray kulli anigu marka insha Allah ta'ala maanta marka inaan dib isku xuseenay moonta mustaqbalka Soomaaliya idinka ay annaga ay gacmihiina ay ku jiraan maanta boqolkiiba 75 shacabka Soomaaliyeed waliba sii kordhayo waa dad dhalinyaro ah weey waa idinka weey isku dadaal fara badan kadib maanta aniga hadda waxaan ku jiraa golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed dawladdu waqtigiin awooddu waa baahsan tahay waa qaybsan tahay saddex tiir idinka social science team aad baa arrinta u taqaan awood qaybsiga maxay tahay wadanka maxaa ka jira garsoorkii oo hal tiirkii fulinto tiir kala iyo tiirkii sharci dejinta anaga wax aad iyo aad muhiim ah marka maanta مناقشات كان عن يلنا أسورسنا إن أوجتين دولتين ماشي أمريكا يركع وسعون لكن يا كم مهم سن أو مستقبل كاس دجين لها إذن كان هين لأن يرد أمريكا هذا الكاس كفريستين أو أنا ودن كين إن كور قبين وإن دالين وأنا متقن أسبدلين وحودنك وأنا قلت يا أمريكا وضم فرب بدن ودنك دبعتوا يسومرين لكن وحبي كبرتين كدبنا تفاين تحيتين يدهن ما waxaan ku jireenaa habkan mismaxan sameeyna wadan cusub wadankeena hagaajisano dib u dhisano wadanka Singapore salabadan soo qaatay Lee Kuan waa taqaanay Soomaali Lee Kuan wadanka Singapore markii uu ka go'ay Malaysia ay waxay wadahan jireen ay qayb kamid ah Malaysia ayaan jirtay Malaysia marka way nacday Singapore jasiirad baa ahayd gaaja wax ma jirin way ooyeen markii Malaysia diiday inay kamid noqoto macnaha ma israb inay ka go'aan جزيرة هل سيري ستيت معناها هل مقالة ومعناها استيد ما أنت لو ود مدى أدوك وجوه مرسن حق الدقالة حق رمر حق استا ودنك سنغافورة وي معوكو قارة مرك هارد وورك شغل بدنا يكو قارة معوكو قارة ذاتك أنت يسقب صدي دول وناكسن جود جوفرنس دول مدى وناكسن شعب كي متقنا وحا ير إليهن سفي على لوجو مامولي ووحا عن لعنها شعب كسومالي ذاتك إلهي وحوي إن وحا ير دلك ولا سوقله أما ريسورس قال هلا عشرة لقى قاضي إن سي وناكسن لوجو مامولو سي شعب كسومالي وهلان أذيك أو قلمان ومرها إلى جان قادان لكن تامي إيمانش هديد الجردين مركب مي إيمانش هذا أنت فريستين قولنا فريستين empowering the youth ماشي كي إيمان سدين شيء جامر سه متى نريد يرجلين كذا كوه جان كرتين يا هدينا دلكي إن هذا المرة بسؤاله ليس حسابتنك أنا قبل ما حنا متى أنا ما له سؤال في عنا بارماك لو يدي واحد يري مرة بارماك وحيدان أنا حتى تبين أقولها فلنت إذنك يا إذن حتى تبين يري مركب أنا الشعب كنا حتى تمام شعب كان مثلنا لكن في مرة بأود ويسكل هنا وحيدها متقنا إنه يقف فتكوا في غنى كان فتكوا في غنى كان فتكوا في غنى لكن قفك رسمي أو صح ده وحوي قفك السجن تسفيري هذا أنيجا هبل أنيجا قبر أمويل دل كان عن كذا الشيء أو ده الشيء أو حب رنايو
maxaan ku soo kordhiyey mise maxaan u qabtay su-aashaas waa su-aasha aan rabo dhallinyarada inaad mar walba isweydiisaan ee idin noqoto midda idin hagaysa su-aashaas waa su-aasha aan doonaayo inaan mar walba dadaal fara badan inta loo galo aad tidhaahdiin dalkan aan aniga u dhashay muxuu waajibaad igu leeyahay xuquuqdeedasa maxay tahay taas ayaa muhiima xuquuqdeeda maxay tahay waajibaadna muxuu dalkan igu leeyahay bikaa haddii dalkaan doon inaan hore u dhaqaajinno cid idinkaan haynoo maanta hore u dhaqaajinaysa dalkaan ma jirto idinka wey dadkii la rabay inay hore u dhaqaajiyaan mana imaanayso haddii inaan ka qayb gelin oo xaafadihiinna hadda marka la empowering youth ku soo noqonaya ee dhiirigelinta dhalinyarada hadda inta xaafadaad degantihiin xamar waa magaalo weyn aniga waa ku faan ani magaalada ku dhashay wey long time ku dhashay sal digfeer loon jiro waagaas idinka ma ina intiina miina dhalay muddo dheer ka hor baan ku dhashay madax sal digfeer hadda Erdogan hospital yiraahdo markaan stal digfeer ku dhashay waagaas markaan dhalnaa alxamdulillah ana xamar marka dadka xamar waxaan ku faanaa oo kulli aan ugu duwanahay dadka oo ka yimaaday meelaha goboladaas xamar waxay ahayd melting pot waxaa lahaa meel soomaalida intay isku imaatay oo dhinac kasta oo regionada gobolada meel walba ka imaadeen ay soomaalida noocii la rabay ay soo noqotay waagaas ina xasuustiin ma aqaan tii hadda soo noqonaysa insha Allah waa alxamdulillah rabbil caalamiin soomaali ka imaaday Hargeysa soomaali ka imaaday Kaalkacyo waagaas xamar waxay ahayd moogtahay magaalada kaliya macnahaas ahayd marka melting pot marka Soomaaliya waxa dad isku jiro mataqaana oo macnaha saas ay ahayd waa waxa mataqaana dadka xamar ku faan anaga nagu yaray xoogaa waxa nagu yar baashaana disho taxiga cudurka xunkoona dila qabyaalada dadka xamar ku dhashay ama ku koray waa ku yartaa because waxa waa ciyaalka xaafadiisa qof walba oo isaga la mid ah waa ciyaalka kala duwan weey dadka baadiyaha ama nooga imaado gobolada markuu imaado wariyaa tahay hore dhigi jiray anaba forgerin marka laakiin anaga moogta banoona ciyaarna inaan dhalinyarada markaan waa aad u yara laakiin idinkaas aad isku jirtiin inaad mataqaanaa banoonigiina iyo waxaas ku mashquulsantiin laakiin topic ama muhiimadda mawduuca maanta waxay tahay empower marka idinka maxaa laga rabaa marka dhalinyaradii ila xaafadaad degantiin xamar saa maqlay ana marka ka tagay 13 degmo meehel laakiin waxa la yiri 17 degmo way 17 degmo xaafaday kaleeda laamee leeda Soomaa laamee leeda aniga marka Mareykankii marka ka nimid xaafadaha awoodda dawladda lagu sheewaaladaadiya xaafadaha laga maamula xaafadaha waa xaafadaas yariista booliiskeeda inaad taqaan qofka booliiska ah oo xaafadaas ma taqaanaa booliiskeedii ah yaa saldhiga booliiskiina xaafadiina meesha laanta ku shirtiin masugu yimaatiin iska warqabtiin haddii xaafadiina dad oo nabadiida ama qof ma taqaanaa rabi dhibaato keeno in hore laga ogaado fiiri bikaas adina nolol fiican rataa ad hadda jaamacadan aabaha iyo hooyada lacag badan ku geliyeen yaa lacag badan lagu gelinaya fiiga bixisiin jaamacada dhiganaysiin waqtiga gelis 4 sano jaamacad ka baxay 5 sano 6 sano kadib waxaa taa mustaqbal fiican rataa Soomaa wax kala maxaa jaamacad wax baranaysiin dalkaagina u faa'iideysan anoo xayis laakiin imagine ka fikir haddii qof taas noloshaas ku diidan qofkaas ma soo dhawaysan lahayd qofka ma soo dhawaysan kartid adoo nolol la rataa fiir adduunku waa naga tagay fiiri inta anaga hoos ku fiirfiirinay adduunku waa naga tagay dhalinyaradiina marka hadaa rabtiina ku jirtay sida awooyaasheen aan mar walba aan awooyaasheen inaan aan kulli ka saaran dulmiga ma way dadaaleen gobonimena siiyeen gobonimo noo keeneen xornimena siiyeen dal qurxoon bay gacanta noo geliyeen laakiin aabayaasheen iyo annagii qaar ka mid ayaa isku ciyaarnay wixii naloo dhiib caani iska daadinay laakiin idinka maxaa laga rabaa marka war dib u soo qaadi karnaa oo dib isugu xiri karnaa dalkan war dalkan dib u hagaajin karnaa oo ma ka dhigi karnaa dal la jaan qaada adduunka la jaan qaada su-aashaas waa su-aalaha rab inaan qortiin idiin baahan tahay inaad dalka hore oo dhaqaaji loo baahan yahay marka walaalayaal waxaa mustaqbalka Soomaaliya ma qormi karo mana qormi doono idinka ayuu gacantiina ku jira dhalinyarada Soomaaliyeed haddaad idinka mustaqbalkiina qof kale marti uga noqotaanna dhibaatada weyn idin soo gaaraysa idinka ayada ku dhacaysa iyo maamooyinka Soomaaliyeed taasna ogaada waxaan iliga baahan yahay marka waxa weeye inaad dawladdiina aad mar walba aad accountable inaad la xisaabtantaan waa inaad mataqaana laakiin ka saartaan caadifada ka saartaan iyo khayrada mar walba mar inaad noqotid logiga oo maskaxda ka hormariyo qalbiga wax walba jecel yahay laakiin maskaxda inay ku agtaa loo baahan yahay maskaxda inay ku agtaa loo baahan yahay oo aan hado maxay wadankan maxaa u fiican maxaa intee ka nimid intee u soconnaa wax badan baa qaldami kara laakiin mar walbana maxaa isku keenhaya anigu waxaan aaminsanahay waxa naga dhaxeeya kulligeen hal luqad iyo hal Soomaali hal dal hal diin nasiibkaas dal leh adduunyadu waa ku yaryahay homogeneous baa yiraahdaa waa dal isku mid ayaan nahay waa waxyaabo mataqaana asadka adduunka asadka waa oo mataqaana qofka la leeyahay waxaas faa'iidada ay koraysa ka mid tahay dhalinyaro hadda maanta idin la hadlayo marka baarlamaanka horta marka iyo dawladnimada waa aragtay wasiirro fara badan dhalinyarada ku jira wasiirada waa aragteen oo hadda maanta ma dhihi kartiin dawladii kama muuqano dawladda dhalinyaro fara badan ku jirta baarlamaankii maanta ma ka muuqan kartiin ma dhihi kartiin baarlamaankii maanta waxaa ku jira dhalinyarada 33% dhalinyaro weey
baarlamaanka dumarka maanta waa boqolkiiba 24 wey baarlamaanka war 40 fiir kor u socdaan waxaan rajayn doonaa ka soo socdana dumarka inay intaa ka sii korin doonaan laakiin maxaa liiga baahan yahay marka horta waxaan liiga baahan yahay jaamacaddiina institutionka ka tiin alabna wax la yiraahdo ah inaa mar walba ahaatiin SIU inaa ahaatiin fiiri adduunyada waa lagu faanaa qofka ma taqaanaa alumni macnaha jaamacadda ka baxda anigu jaamacadda University of Minnesota ka baxay always that's jaamacaddeedii wey iyo Mankato University jaamacadda ka baxay analaas jaamacadu weliga la way hagi doonaan sida maanta SIU daas halka u fadhisiin oo kale hoolkaas bari kan imaan doono ardayga imaan doono waa arday ka warqab inuu idin noqdo wey marka taas associationka markaas masalayno ama aan galgalina qaanadaha galayno inaan qaanadihii qabiilka u bedelno qaanadaha associationka oo ah dumarka jaamacadda iskuulada saas aan professional saas in loo sameeyo dalkii waxaan ku soo noqonayaa marka toobiga anoo ku soo qatimaa raba inaan marba aan iswareysano idinka mar walba isweydiiyo waxay su'aasha in weydiinaa su'aashii koowaad weydiiyaa Soomaali noocee ayaan rabnaa fiiri Soomaali noocee ayaan rabnaa su'aashaas waa su'aal muhiim wey anigu waxaan aaminsanahay marka waxaanu doonaynaa waxa way Soomaali midaysan anigu waxaan aaminsanahay Soomaali awood baahsan tahay oo shacabkuna awood leeyahay dastuurkeena wuxuu dhigayaa shacabku ay awood ka bilaabataa isaga ay ku dhamaato in taas run laga dhigo shacabka hadii awood ka bilaabato ama isaga ku dhamaato in shacabkuna ay isku organize gareeyaan xaafad nabadeynta isku soo celinta iyo future peace sameynteeda magaalada Xamar oo toobigan empowering shaping the peace nabadda waxa lagu sameyn karaa waan idinta taabtay markii koowaad xaafadiina dhalinyarada in ay isku xirmataan oo aad ka warqabtaan xaafadiina aad sameysaan plaques activity xaafadiina oo wanaag isugu imaataan oo wax leedahay black parties oo mataqaana markii maalmaha khamiis kala habeen ama habeen maalin inaad isku imaataan dhalinyaradiina isku qorsheysaan oo ogtihiin xaafadiina qofka dhibka wada qofka fiican booliiskiina xiriir la sameysaan qofkiina dhibaataysan oo xaafadda laga warqabo qofkii mataqaana sii kartii mataqaana dhibaato wadaya ama qof walba markaas informationka wanaagsan la wadaagtiin laamiin amniga dawladna ku kalsoonaataan fiiri dawladdan ma dawlad kale heli karnaa anaga fiiri waa Soomaali hal baan iska qaldantay idinku raaliga mucaarad ما في عنيه معارض صح لك معارض كوينه نقضاء معارض وحصحية معارض وحاسدة وضعها يدلك إنه هرمنا مرة بس إن كان أوفل جروه تاس حاسدي ما وغناني فيري ذلك قارئ دي شيء قد عاد عسوا الله يعني وحي كليهين دولة اللبنان صار هرمرين سي أنا أقول ما أنا ماشي هيد ماشي كسي قبلين أنا ما يلا أنا وحى مثلا ده السكسس كدل كان هذه الدولة دان إيه كل أن كجرا متكا وقريب عن برانج كنا هاي هدي يقول ست أدا يقول يستي بكال بريتولة وعاد ليس كرسي جيجو كاغفي عن هذيك حشمدي ما أنت حل بان كلها متكفي عضو هلاية إن أدون كل جوسو يستاجو لكن تاس ده كاغسي شقين هايو وحيلام تايسين مدحوينها سين برايم مينستر وسين وزير ده دولة النمر الصومالي هدي نوها جاكت أو نو قرحنات وحاول إذن كأدو مريه إذن كقرنيسين تاس وقاعد مرولبا دان يورو waxa wadanka loo soo maray aan ilaa teed republic ku jira jamhuuriyadda saddexaad ilaa labadii kun hadda la marsiinaayo dadaalo fara badan kadib maanta maalin ay ka wadankan uu ka jaanis fiican yahay ilaa burburkii anigu ma arko waxaan idin sheegaa sababta idin leeyahay waxa weeye dalkan waxa la isku haystaan fundamental issues in ogaatiin waxyaabo asaasi ah oo arabayna marba ardayda jaamacadda wuxuu ku fiican yahay waa in jiinka laga fakaro maskaxda lagu tuujiyo way waxyaabo adag lagu maqlo marka qaar kood laakiin waxaan ka rabaa waxa weeye ardayda fikradaha adag oo iskhilaafsan ha u qaadanina inay yihiin wax isnaceeba waxa weeye in adigu u noqoto qof waxa la rabaa qofku markuu ardayga oo jaamacadda adduunka la barayo philosophy aad loogu dhigayo kulli waa intuu kalaasba philosophy qaatan umaleynaya marmar su'aalo ku weydiinaya aleena diinta ma ogola laakiin waxay ugu talagaleen in maskaxda waxay maqli karin ama dul qaadan karin loo sheego si aad u tiraahdid waa inaad fakirtaa waa inaad gaajo kugu qabataa marka hanger kugu qabataa waxbarasho subaxii aad tiraahdaa wallahi ku daro saasaa marka lagu kordhiyaa dadaal fara badan yani liiga baahan yahay mustaqbalka dalkan anifsa aaminsana wuxuu ku jiraa gacantiin nabadeynta dalkan wuxuu ku jiraa gacantiin cidna marti ha uga noqonina haddaa cid marti uga noqotiin oo aad awoodiina qof kale siisiin dhib ayay leedahay waxaa loo socdaa dalkan ogtihiin aan kusoo gabagabeynayo ogtihiin dalkan marxaladaha fara badan soo maro runtii oo mahad celinayaa dowladdii ka horeysay waxay qabatay maadaama waa ogtahay alkoor waxaa soo xuli jiray xildhibaanada waxaa soo xuli jiray
oday dhaqameed ba hal qof iska qori jiray ha hebel ii qor Seynab qor Cabdullaahi qor waa laga baxay waxaa loo gubday hab kokasa oo ah dad ergooyina oo isku tegey oo dadkii matalaya inay xildhibaanka soo doortaan oo sax ma hadda marka 2020 waxaa loogu jiraa qorshe la yiraahdo hal qof hal cod waa qorshihii aan rasmiga ahaa oo Soomaali aan dareemi doono mustaqbalkiina gacanta ku jiro awooddaas aad lahaan doontiin insha Allah tacaala inaan ka wada shaqeyno si u suurtageli lahayd oo shacabka awooddi ku soo noqoto marka taas marka la gaaro laakiin wuxuu noqon doonaa nidaam la yiraahdo PR proportional representation waa ogtiin adduunyada nidaamyada waxaa jira presidential system hab loo ah parliamentary systemki laba nooc kala jira awardar school yaa dhigtaa political science yaa dhigtintiinaan who is the political science intaan ma sha Allah I'm sure inaad galaasaan soo qaadateen marka galaasaha marka political science kiina kulli koorsooyinkiina Soomaaliya marka nidaamka noogu dhow waa nidaamkii aan isku raacay hadda u dhow waxa waa PR waxa la public proportional representation maadaama dalkan dal dhibad soo maray uu yahay dal conflict soo maray yahay waxyaabaha majoritarianka systemka oo sida UK camal ah qofka majority party takes all qatar bay leeyahay kartaa marka waxay qaateen PR ka proportionka marka xisbiga intuu helo xisbi hebel xisbiga intuu codku ka helo ayuu heli doonaa kadib qasab waxaan noqon doontaa marka in la sameeyo kooxaysi ama coalition haddii kale muta lama samayn karo iyo in la sameeyo single constituency wax la yidhahdo single constituency-gaas oo ah maadaama dalkii hadda qayb dhan oo naga mid ah fiiri su-aalaha raba inaan isweydiina ka mid tahay midnimada Soomaaliya fiiri macnaha Somaliland maogta issue-gaas issue waxaa waaye oo inaan qalbiga galno dal qayb dhan baa naga maqan waa inaan tafaawiixeedana weysi mataqaanaa Soomaaliya midnimada loo sugi lahaa waa in qof walba oo Soomaali laga qanciyo mataqaanaa waxa uu tabanaya si aan u dhistana Soomaali qurxoon wey ma yeeli karno mana ka tegi karno waxa weeye si maadaama adduunkii fiir integration buu sameynaya waa isku dhawaanaya oo adduunka uu isku sii dhawaanaya oo wadamadii adduunka isku tagaya annagiina waxaan ku soconaa qalab adag go'an oo meel fadhiya waa tay shacabka Soomaaliyeed no aniga nasiib waxaan helay inaan muddo dalka waxaan maray ilaa intii markii madaxweynaha safarkiisa aan isku raacnay ilaa Puntland ilaa Galmudug oo dhan aan marnay runtii shacabka meel walba ay joogaan fariin bay noo soo dirayeen fariintaas oo dhalinyaro u badnaayeen meel walba in aragteen ma qaas warad dhalinyaro u badnaa idinku kale u badnaa isma xasuustiin fariintu waxaana Soomaali midaysan Soomaali quwad awood dawladda dhexe leedahay laakiin baahsan awoodii maamuladiina ay awoodii hoose iskuuladoodii booliiskoodii hoose fariin waxaan ka soo qaatay ah shacabka rabitaanka u qabaan dawladooda inay hor gaarto shacabka ayaa haddana waxyaabaha guide gareynaya oo nawado sii wadana shacabkaas weeye waa in shacabka iyo dawladda aan la kala dhex gelin waa in adiga aad aaminsan tahay dawladda inaad leedahay waa in citizenka awoodda muwaadinka awooddaada inaad ogtahay haddaadan awooddaada ogeyn dhalinyaro biiskaas oo la sheebgareyn doono mustaqbalka nabad si lagu heli lahaa lama helayo nabaddu waxay ka bilaabataa adiga shakhsiyan nabaddu waxay ka bilaabataa dariska ay ka bilaabataa nabaddu waxay ka bilaabataa xaafadaha idiin sheega block by block magaaladan xamar waa magaalo aad iyo aad u samir badan weeye macnaha waxaan uga hadlaya waxay tahay waxa weeye arrimahan aad muhiimka u ah doorkeeda iyo caasimadda iyo doorkeedana waxaa dastuurka dhigaya labada aqal ayaa ka hadli doona waa la socotiin dadka laakiin magaalada Muqdisho degan xaq waxay u leeyihiin inay helaan mataqaanaa representation sida in aad maamul oo kale xaq u leeyihiin marka aniga waxaan arrimaha laakiin adag oo siyaasadda in laga hadlo laga fikir madax la tuujiyo bika haddii hal qof oo Soomaaliya cadaalad xumo tabanayo midnimadeena wada jirkeena xumaanayo taa la socda haddaa wax walba nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi wax ka fiican lagu dabadiyo khalqi ma jiro dawladii ugu fiicnaa adduunka isaga soo dhisay wax walbana tiirka ugu horeeyay wuxuu ka dhigi jiray cadaalad uu ka dhigi jiray haddii cadaalad la helo wadanku wuu hagaagaya dhalinyarada mustaqbalkoodu hagaagaysa mustaqbal future ayaa heli doontaan waa idinku dheeraada laakiin waxaan ku soo gabagabeynaa waxay tahay dalka annaga ayaa wada leh idinka ayaana mustaqbalka ma la dhisi doono lama dhisi doono mustaqbal idinku ayna gacantiina ku haynin waxaan ku samayn kartiin waxa weeye idinkoo gacmaha isqabsada idinkoo dalkiina waxa la u qaban kartiin qabsada aad iyo aad ay maanta farxad igu tahay inaan joogo aan kala soo qayb galo badqana public lecture-kan aan ka jeediyo jaamacaddan Somali International University wixii aan qalday shaydaan bay ahaadeen waxaan wanaajiyay anaga iskale aad oo maasantiin dhammaan waana salaamaya inta ka soo qayb gashay barnaamijkan ama public lecture-ka la soo jeedinayo waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo xildhibaanka ama MP-ga laba su'aal oo muhiim ah inaan weydiiyaan rabay su'aasha koowaad waxay tahay maadaama
laga hadlayay Soomaaliya ama dhalinyarta awoodsiinteeda mustaqbalka ah sidee dhalinyarta markaan aan baaray ama aan martay inta badan aan ku dhex jiray waxaan ku arkay martay wax la dhaho qabyaalad marka waxbarashadana inta lagu guda jiro ardaygu uu ku guda jiro oo academic yahay oo jaamacad u dhiganayo qabyaaladu wax badan bay u dhimaysaa maadaama awoodsiintii iyo midnimada Soomaaliya laga hadlayay sidee looga reebi karaa aan xildhibaanka weydiinaya ardayda jaamacadaha dhigato wax la yiraahdo qabyaalada sidee looga reebi karaa aniguna aan in badan aan arkay ama aan jaamacad dhigan hayay ama arday iskuul ama waxyaabo badan aan dhalinyaro ku dhex jiray aan arkay maadaama ay yihiin mustaqbalkii wadankan la wareegi lahaa sida la sheegaba ama ayba tahayba ayakana wadanka hadduu dhismo waa ayaka ay faa'iido u yahay hadduu wadanka dumana ayaku ay dumeen su-aashaasaan weydiinaya midda labaadna maadaama uu soo hadal qaaday midday ahayd midnimada Soomaaliya waxaan ognahay haddii ay Somaliland maqan tahay waxa naga maqan qayb weyn oo ah qaybta ugu horeysay ee calanka soo qaaday 1960kii soo qaaday ee ugu horeysay 26 Juun maadaama ay qaybtaas naga maqan tahay oo noo keenay markii horena calanka sidee waxay naga tabanayaan aan oga tanaasuleynaa maartay ayakuna oo loo soo dhaweynaa wax kastaba qofka hadduu ka maqan walaalka ah waxa fiican maartay meesha ugu dhow kugu imaan kara in adigana aad oga tanaasusho wuxuu u tabanayo marka sidee ugu dhow aan weydiin doona xildhibaankana insha Allah asagana ka bacdi waxaan ka socodsanaa inuu wixii talo iyo tusaale kale noogu soo dari doono insha Allah maamulka iyo xildhibaanka aad buu u mahadsan yahay hal su'aal qaba horta magacayga waa Xamza Cabdullaahi Maxamed su'aasha qaba waxay tahay wuxuu ka hadlay xildhibaanka in dhalinyaro haddaan nahay aan ka qayb qaadan karno amniga inaan group isku raacno aan laanta tagno aan la xiriirno marka sidee laantiyo anaga nagu kalsooneen oo kalsooni naga dhaxeen kalsooni nagu qabin sidee u la xiriiri karnaa ama wax aan isku dhaafsan karnaa أولاً السلام عليكم مجيء وأقرأ عبد الرحمن يوسف مركور وحار وحلوان كإنا أسيو وحير أو هذا اللي يرينا ده هداي وحودا مركا قبل هذه إنه حاسوين للصومالي بدن وقيرسن مركا وحار وإنا كل وذاو محلات فكرة ديرو يجوا حستاسوا صومالي ذا هل كمر قيرسين الدولة دي مذربان وهل كمر أركان مدح صورح جشة أما شقوين لقبنا أو سقط كهاد سعتوك الاستحلاقات لدايوكل marka waxa Soomaalidu looga faa'iideysan karaa markii hal meel iskugu yimaadaan ayagoo way qaadanayaan marka maadaama aad tahay dadka matalayaasha shacabka qaar kamid ah waxa ka codsanaynaa inaad gudbiso barnaamijka dadka hadda ka faa'iideysanaysaan inaad uga faa'iideysataan meelaha ay iskugu imaanayaan 100 qof oo meel iskugu imaanaysa 100 qof oo meel iskugu imaanaysa markay isku imaanayaan waa dad qiireysan dadkaas markaas waxa u sheegtaa galaayo marka uga faa'iideyso halkaas mar iskugu imaanaysa had dadkan dhalinyarada maxaamaad sheegayso waa dad qiireysan way ku dhageysanayeen maanta daartina barnaamij gudbiso hadda ayagu u sheegto way ka qaadanayaan laakiin maalin kale ayagoo caadi oo offline hadda u sheegta ma qaadanayaan xildhibaanka oo waqtigiisa runtii ina siiyay taasina farxad ay noo tahay maanta in anagoo ardayda ah horta marka hore magacaygu waa Maxamed Abdiraxmaan Macallin qaybta public administration semester 3 xildhibaanka aad ugu mahadsan yahay waqtigiisa qaaliga maanta maadaama uu insiiyay sababtoo anaga waxa aad inoo farxad gelinayo qaybtii law makingkii oo maanta wadanka uu lahaa oo maanta inay noo yimaadaan anaga ina siiyaan consultation ina siiyaan ay inoo sheegaan dhalinyarada iyo waxyaabaha looga baahan yahay sidii security environment-ga loogu sameyn lahaa qayb weyn ayay noo tahay anaga inaan ku dayano tiisoo ahayd ratiga dambe saanqaadkiisu leeyahay sababtoo anaga ayaga hadday noo joogaan maanta ayaga waxay noo sheegaan wixii ayaga ay sheegaan aan qaadanaynaa marka laba su'aal ay haystaa su'aasha horta koow oo asaga caadi ahaan anagu inoo weydiiyay oo ah Soomaali nooca ayaan u baahanahay Soomaalidu waa dad aad u jecel nabadda anaga Soomaali haddaan nahay nabadda aad aan u jecelnahay mar walbana waxaan jecelnahay in hadda future waxa laga hadlayay cinwaanku wuxuu ahaa empowering youth oo Somali future sidee ku helaysaa horta future-ka in security future in la helin in la helo waxa ka horeysa maanta anaga current security anaga aan taaganahay qaabkan ku xalin karnaa si aan u helno mustaqbalka si uu ugu fiicnaado security anaga aan leenahay security anaga aan leenahay si uu u fiicnaado mustaqbalka kan maanta jooga dhalinyaradu qaab nooca ay uga qayb qaadan kartaa marka labada su'aal aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay inta aan loo gudbin in la sameeyo future planning oo ah
qaabka dhalinyaradu ay u samayn lahayd future planning inay saxaan security ka qayb qaataan qaab noocee ayay maanta dhalinyaradu ay u samayn karaan inay ka qayb qaataan security maanta taagan ay ula shaqayn lahaayeen su-aasha kale oo ah saddexda dowladood saddexda qayb institutionka ay leedahay dowladdu oo law makingka uu ka mid yahay oo maanta senatorka uu inoo joogo waa qaybta ugu muhiimsan ee uu leeyahay institutionka ay leedahay dowladdu iyaga marka door nooca ayaa uga aadan maadaama oo member uu ka yahay dhalinyaradu maanta inay leeyihiin empowering in la siiyo oo nabaddii ay ka qayb qaataan horumarkii waddanka ay ka qayb qaataan wax walba oo maanta waddanka kusoo kordha dhalinyarada ayaa lafdhabar u ah qaab noocee marka ayay u samayn karaan in dhalinyaradii ugu sheegaan dhalinyaradii ugu dhiirigeliyaan dhalinyaradii ay u sameeyaan in laamihii amniga iyo qaybihii kala duwanaa ee waddanka uu ka kooban yahay inay u sheegaan marka waqtigaaga aad ugu mahadsan tahay waa Xuseen Ali Cabdi Student Association Faculty of gudoomiyaha Student Association Faculty of Arts and Social Science su-aasha rabo inaan weydiiyo xildhibaanka waxay tahay dabcan sida ognahay waxaa ka tirsan tahay xukuumadda baarlamaanka Soomaaliyeed baarlamaanka dowladda Soomaaliyeed awoodihiisa waa kala qaybsan sida hore u sheegtay saddex hay'adood waaye saddexda hay'adood waxaa macnaha ognahay in baarlamaanka Soomaaliyeed ay ka tirsan tahay lix xisaabtamaan xukuumadda in awoodooda tahay shaqadooda ay tahay maadaama ay matalaan shacabka in afayeen u yihiin su-aasha ku weydiinaa waxay tahay baarlamaanka doorka kaga aadanaa lix xisaabtanka xukuumadda soo lisma dhihi karo macnaha baarlamaanka hadda waxay taabacsan tahay ama ay raacsan tahay xukuumadda su-aasha kaloo labaad aan ku weydiinaa waxay tahay sida ognahay Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay 4.5 mar walbana dowladda ka dambayso waxaa lagu soo dhisaa nidaamka 4.5 dhalinyaradu hadda waxay aad uga qayb qaadanayaan siyaasadday soo galeen qaabkay siyaasadda ku soo galeenna waxay tahay nidaamka 4.5 sidee uga bixi karnaa nidaamka 4.5ka aad u mahadsantihiin aad iyo aad maaragtay haddaan su-aalihii aan u galo maxamed sheekh cali sidee looga hortagaa qabyaaladda weliba wuxuu qosay jaamacadaha iyo horta waxaan rabaa jaamacaduhu moogtahay waa iftiimiyaha waa meesha maskaxdu markay korayso waxaan rabaa inaad ogaatiin waqti ka fiican xilligaa maanta ku jirtiin ma arki doontiin waqtiyada adduunyada oo kusoo mari doonaa maraad da-da waad gaari doontaa dib baa u xasuusan doontiin this is the golden years waa sanadihii dahabiga ku jirtiin waqti keliina wax baranaysid oo nasiib u heshay macnaha waa waqtiga loo baahan yahay inaad maskaxaada ay kororto si aad maarata wax fiican weyshid horta aan kala saarno qabiil iyo qabyaalad inaan kala saarno waay maxamed siyaad barraa isku dayey waxaa waaye wax walba 10 laga qaataa waxay yidhahdeen qabiilka inta naqash loo qoray aa layidhi qabiilka waa duugnaa layidhi laakiin kadibna dadkii kuwii duugaa soo saareen that's the problem fiiri marka inaan daacad u hadalno way moogta marka waana tii keentay oo subsequently macnaha keentay in dalka uu dagaal sokeeyo galo oo dalka burburo ya iyadoo wax walbana mar walba cadaaladdaasi maanta cadaaladdaradaasi la kala tabanaya ahayd horta inaan ogaano wey anu mar walbaa dhaha horta waxyaabahaan isku haysano waxaa ka mid ah annaga reexamara doolashaan cuni jirna doolashadaan nagu yar horta macnaha waxay dhahan gaalada waxay dhahan expand the cake macnaha in keega la weyneeyo opportunity-ga la badiyo waxaa waaya resourcigii oo yar dhaqaalihii oo yar wixii oo yar ayaa qof walba wuxuu arkayaa in dowladnimadaas ama state powerka ama xukunkaas inuu ku helo wax isaga ka badan ama awood dheer inuu ku helo waa ila garaysa aan malaynaya waxyaabaha keenaya in aad loogu tartamo doorashooyinka ama waddamadan maaragtay soo koraya dhaqaalahooda oo dhan oo macnaha waddamada sagaal sokeeye waxaa keenaya waxaa waaye wixii yaa wuxuu leeyahay iyo adoo raadinayo iyo wax raadinaya marka qofkii waxaa la rabaa marka inaan kala saarno qabiilka iyo qabyaaladda ummadaha ilaahay anu Soomaali waxaa aaminsanahay anigu kulley shakhsiyan waan idin cadeynay anu shakhsiyan waxaa aaminsanahay Soomaali iyada gabigeeda wax la qabiila macnaha marka loo fiiriyo adduunyada qabiilaha waaweyn Afrika hawsaha ee qabiilka la yidhaahdo Yoruba Fulani Kikuyu I think Oromo I think Soomaali qabiilka shanaad ugu weyn waay saan qiyaasayo macnaha dadkan hawsaha in ugu badina may oromada ugu badan hawsaha ku xiga saasan qiyaasay Kikuyaha marka Soomaalida Kikuyaha ka badan marka Soomaali anagana hal qabiilaanaha marka anaga shakhsiyan waa one hal anaga yaa mataqaanaa sidii maadaama abtiriski iska batay saas
laakiinse hal ummadaan nahay waxaa looga tegi karaa marka oo fikir ay weydiisa aniga in wax la barto oo waxbarashada aadna wax loo aqriyo jaamacaddan iyo jaamacadaha kalena waxaan ku dhiirigelinayaa in bugaagta fara badan oo ku saabsan social science-ka oo aad u fara badan haddaa haysatiin waddanka waa iska fahmi karaa dalkeenna horta inaan noqono dhaqan akhrinta la yidhahdo inaan barano akhrinta soomaali dhegaysigaan ugu badan iyo muxuu yidhi iyo maxay tiri taas inaan horta soo afjarno oo aan noqono maxaa wax walba marka qofka kula doodaya idinka taftiina kabika iska bilaabtiin war waxaan wax evidence ama science ma igala doodaysa ama wax mataqaanaa oo proven mise adiga fikirka ay sheegaysa oo wixii ay noqoto dad aan noqono oo science iyo qiimaha u leeyahay marka waxyaabaha looga gudbi doono laba shay oo dalkan curyaamisayna waana kuu sheegaya oo na curyaamisan waxa waa qabyaaladda haddaan horta laga hadlin iyo musuq maasuqa waa labada shay halkaana dhigay loona baahan yahay inaan geesinimo muujinno laakiin maanta waxaan rabaa inaan ila moogtahay dalkiina wax wanaag inaga sheeg waa artiisa ma Soomaali muddo dheer kadib in maanta dad xabsi u galaan mataqaanaa musuq maasuq soo talaabo fiican ma fiiri waddankan fiiri meel in maanta dad lagu eedeeyo oo madax ahaa inay musuq maasuqeen waxa weeye mar waxaa jirta aan la hadli kara jirta marka waxaan ka wadaa dalkan horta hore u socdaa horta marka su-aasha qabiilka qabyaaladda waxaan uga bixi karnaa waxa weye dhallinyarooy walaaltinimada iyo sida islaamka iyo sida reer galbeedka iyo dhaqan kastaba isku midooba inta isku professionalka ahba dental association qaybta ilkaha social science-kiina saas ayaa ka fiican intaad hoos uga daadigi laheedeen arrintaas oo Soomaaliland ani shakhsiyan aad ay ugu weyn tahay waxaan idinkeena fikirkaas idinkeena waxa waa in anaga qayb dalkeena inta ka maqan oo macnaha inkastoo hadda ku faraxsanahay wasaaraha maaliyadeedna looga hadlay shirki golaha wasiirada in wada hadal loo Soomaaliland la furo aniga hooyo korisaan ahay dad badan oo dumarka Soomaalida qayb weyn ka qaataano markaan koraayay maamaha mar walba i gaargarin jirto oo aan marka hooyaday markaad cunug inuu hagaago aniga asalkii horna mudanka soo jeeda xiri jirtay ratiga dambe sanqaadkiisu leeyahay macnaha waxay ka wada jirtay soo fahmay aniga wiilal iga yar aniga wiilal ma wada dhashay marka adiga leedahay xumaasi kuwaan u hagaagaan moogta marka anaga Southka Somali South Italian South anaga waxaan nahay big brother ay fahmaan maanta waxaan rabaa waa inaan dulqaadkii faraha badnaa iyo wax walba oo dadka British territory Soomaalida mataqaanaa waaga calanka runtaa weeye ha laga fato wax walba laakiin waxaan aaminsanahay in walaalka weyn oo tanaasul fara badan iyo wanaag fara badan oo intaan muujinno oo aan dadka shacabkaas walaalaheena inagu Soomaaliland nahay meel ma kala tegi karno hadda dhalinyarada ugu fara badnaa oo Hargeysa jooga xamar ay imaadaan shaqo imaadaan lamaantii waa aragteen kulli jaamacadiina dhigtaan waa aragteen ma kala maarano meel ma kala aadayno annaga walaala marka inaan maskaxdeena tuujinaan rabaa laakiin oo ah in meel inta Soomaaliya aan marba ku dadaalno in aan nabadna geeska Afrika wada noolaano waxyaabaha guulaha waaweyn oo runtii uu soo hooyay madaxweynaha inaad macnaha shacabka moogtaa dawladdiina markay wax fiican qabato waa inaad ku farxdiin waxaa ka mid ah in dawladii dariska ahaa oo naqasi jiray oo afaaraheena mar walba gacanta la geli jiray oo samayn jiray hadda inay dhahayaan wareedha Soomaaliya waa sikiin baxnay oo idinka dantiina xalista markii wax dhacaanba kuwii inta aada u bool jiray Addis Ababa tegi jiray ama Nairobi tegi jiray inay iska soo xirmayso mataqaana marka dambe inay xamar imaan doonaan insha Allah taala that is the goal kama waan hadafka la leeyahay inaan dhammaan wada fariisano markaas geedkeena quraca fariisano qofkii wax tabanaya wixii tabanala siiyo wax walbana cadaalad ay salka looga dhigo naftirkeeda annaga inta u badino wax hadaa u badinayna kuwaana dambi ka gelayno midnimadooda waa qaldamaysaa markaas laakiin mar walba waxaa muhiim ah inaan mar walba ka shaqeyno inaan walaalaheen Soomaaliland la soo dhaweeyo dalkii la isku hayo la isku xiro hal Soomaaliya oo nabada awood baahsan tahay qabyaaladu yar tahay merit adduunka maxaa lagu kala tegay merit qofka waa inuu mataqaana hebel maxay baratay hebel maxuu bartay adi markaad jiiftid istaalka markaad jiiftid haddii ilaahayna kuma keeno oo wadnaha lagaa qalaayo dhakhtarkaas wadnaha kaa qalaayo ma jeclaan lahayn inuu dhakhtar C ama D ama jeclaan lahayn ila naftaadii in the balance inaad markaas nafta kaa dhacda halis ku tahay horta bifahmaysa meesha ka imaanaya
isbitaalkaa jiiftaa saasa inaha indhihii korka taagan yihiin aakhiradii adduuna u dhexaysaa waa lagu qalayaa maxaa mar kartaa waxaa rabtaa dhakhtarka ugu fiican oo meelad ku imaadaa rabtaa soo ma oo shaqadii yaqaana laakiin ma kala jecel hebelaa qabiilkayga hayo kaa wallahi markaas aakhiru kuu diraya wallahi intuu kaa qalda ma garad marka taas naftirkeeda ka fakerin waxaa marka mered aan qiimayna meredka qofka a studentiga qofka mataqaanaa dadaala inaan abaal marinaa jaamacadu way sameeyaan in la abaal mariyo qofkaas qofka shaqo fiican qabta maaragtay oo loo waraa hebel ardayga ama heblaayo qofkaan dadaalaysa waa in mataqaanaa qofka la dhahaa wallahi waa encouragement niyad loo dhisa la dhahaa waa horu soco la dhahaa waa in marka qofkaas oo niyad lagama jibinayo fiiri hadda mar qaarkood dalkeena fiiri haddaanan qaldin wixii naga qaldamay waan markii su-aashii waa idin weydiiyey haddaadan garanin meeshaa ka imaatay ma garan kartid meeshaa u socotay taa ogaa weliga allah haddaadan baastigaaga ogeyn futurean ka hadlayni what kind of future we want to shape mustaqbalkee doonayna haddaadan historygaaga garanaynin see mustaqbalkas baa u ogaan karnaa waa mar walba kusoo noqonaysaa marka haddaa marka aan mar walba aan ka fikirna waxay tahay cadaalad darradii dulmigii keenay dalka inuu burburo haddaa mar walba aana ka cararayn aana samaynayn exdii musuq maasuqii qabyaaladii haddaan laga fogaan oo la aadin waddadii ahayd horumarkii isjeceelkii walaaltinimadii iyo qofka mered qofka hebel ama heblaayo qofka ugu fiican shaqada la siiyo taas ayaan qabyaalada uga baxaynaa taasna saasaan ku baxay haddaan ka jawaabo qatra waa ku raacsanahayaa waa rutaa in mataqaanaa soomaalidu waa dad qiira leh oo markaas laga faa'iidaysto laakiin aniga waa ka digaa qiirada iga raali ahaadaya ani markii hore waa idin ku furay waxaan dhahaa laablakac meel laguma dhisi karo iga raali ahaada waxaa loo baahan yahay thought iyo deganaan iyo feker iyo meesha u socota haddii inta wax lalaab kaco hadhow halkaa labada maalin waa baaba'ayaan meesha kusoo noqona haddana laakiin waxa markay leeyihin strategy qorshe leedahay implementationki iyo habkii lagu fulnaa leedahay monitoringki iyo sida xisaabtanka leeyahay evaluationka ay qiimeynta ay leedahay markaas horumar gaarisiin wax walba nolosha shantaa stable qaadiim weeye wax mar walba ay samaynaysa saas sameeye marka iskuulka aris waa inaad gool shantaas gool leedahay xamza aan ka jawaabo su-aashii xamza cabdullaahi su-aashii ahayd sidee dhallinyarada ula shaqayn kartaa laamaha amniga soo ma ahayn nabad la-aan waa horumar la-aan weeye waxaa weeye dhibka jira wuxuu yahay waxa la yidhaahdo see lagu yareeyaa kalsooni darrada lagu qabo dowladda oo see lagu kordhiyaa kalsoonida dowladda lagu qabo si wada shaqaynta shacabka iyo dowladda ay u wanaagsanaato waxaa lagu gaari karaa wax horta hal maalin la qaban kara male adduunka wax walba waxay leeyihiin waqti iyo dadaal fara badan anigu waxaan ogahay idinka iga badisiin ku dhalateen ku soo korteen anigu intii hadda 20 dhowrka sano ugu dambeeyay waa maqnaa 2 sano hadda u dambeynta xildhibaanka ku soo noqday laakiin waxaan diyaari kartiin magaaladan marxalado kala duwan oo ay soo martay in marka si amnigii marka uga sii ficnaad intii hore waxaan ka wada waxa weeye isku xirkaas muhiimadda ay leedahay in laamaha amniga ayna inaan naftiina khatar inaan geliyo mar raba aniga laakiin waxaan ka waday waxay tahay inay muhiim tahay haddaadan adiga qofka hadduusan geesinimo la hor imaanin oo dalkaan idhaahno annaga ayaa iskale annaga ayaa dib u qaadanayna macnaa maalin walba cabsidaasna la kala geliyey baan ku kala maqaanaynaa marka anigu waxaan aad u jeclaa waxaa weeye booliiska oo kale aad buu u tababaran yahay waa fiican yahay in haddii aad wax dhib kuu keenna adiga laakiin aad la wadaagi kartid oo khataraa ama ijraa inaad la wadaagtid in idinka xaafaddiina oo kale inta dhallinyarada waxaan ka waday aad samaysiin plug xaafad walba aad samaysatiin dad iska warqaba waxna waxay samayn kartid marka informationka ama akhbaartiina si fiican lagu heli karaa waxaa weeye aan war helno aan tala helno wey haddii akhbaar la helo oo information la helo talaa la helaa anigu mar walba marka waxaan ka wada waxaa weye inaad wada shaqaynta inaad hayadiina ku kalsoonaatiin si xaafadoo xamar hadda qorshada waxaa jirta ilahda nabadaynta muqdisho waa bilaaban in hadda bilaabatana waa rajaynaya qorshahaas waxaa weye laisku xidho adeegii magaalada adeegii degmooyinka booliiskii iyo shacabkii in laisku xidho si mataqaanaa wada shaqaynta marka si kor loogu qaado oo ololahaas mataqaanaa nabadeynta annaga waxaan ugu yeernaa westiga waxaa loogu yeeraa community policing wax la yidhaahdo hadda ka soo qaad xaafadan taleex sooma xaafadan xaafadda taleex danaheeda iyada taleex iyagaa naga yaqaan dadka taleex degan way naga yaqaanaan danahooda
qofka marka waxaa fiican booliiska talex ka noqonaya inuu yahay qof talex deganaan jiray talex ku noolaa talex ku soo koray because hadhow wuxuu sameynayaa qofkii khatarta ahaa iyo kii fiicnaa kii kale kala yaqaan horta inaan isla afgarana wey marka saasaan ka wada marka in qorshahaas la xoojiyo oo wax la yidhahdo community policing in xaafadaha booliiskeeda la xoojiyo saasaan ka wada si amniga u wanaagsanaado haddii aan xuseen waa runtiis waddanka waxaa weeye saa sheegna oo ku bilaabnay dastuurka annaga markii aan xukuumadda ansixinnay oo wasaaraha marka ansixinnay sideedoo baarlamaan qofka hadhoo qaldamina qof haddaa nin hadduu m p di yimaado m p saddex shay ayaa ka rabtiin idinka shaqadeena inaa fahantiin loo baahan yahay midda koowaad waa sharci dejin annagu sharcigaan dejinnaa midda labaad waa matalaad shacabkii aan matalnaa midda saddexaad waa kor joogtayn overside oo aan xukuumadda ku leynaa marka taas igala hadla xuseen kor joogtaynta runtii hay-adaha dastuuriga waa la xisaabtanaa wax badan baa waa la kala fikir duwan yahay laakiin fiiri dawlad isdaba jaan qaadaysa oo lugta isqabanaysana khayr male la socda isla xisaabtanku maaha isbaara in dawlad loo dhigta maaha idinkoo iga raalli aniga fikirkiiaan ka hadlaya isla xisaabtanku waxa weeye in wixii saxda ah hadda maalin dhaweed oo kale tusaalaan ka wadaa raalli ahaadaya maskaxdiinana waa kulle waa korsantaa ogaay waxay report ba waxay soo saareen finance committee-ga guddigeena maaliyadda oo baarlamaanka bishaan December waxaa laga hadlayaa in deentana laga cafiyo waxaa laga hadlayaa mataqaanaa in dalkan maaragtay oo in deentii la cafiyo in lacag dhaqaana la siiyo World Bank lacagna siiyo in IMF ay budget supportna siiso soo wax wanaagsan ma laakiin report and evidence lahayn oo gadaal ku qornayn hay'adihii masuqmaasuqi in haddii la yidhaahdo 42 milyan baa la dhunsaday oo loo diraayo informationka loo diraayo mataqaanaa si ay dadkii donorskii dadkii waxna siin lahaa hay'adihiina siin lahaa wax ay naga hakiyaan qofkaas marka qof Soomaali u naxaymaya qofkaas marka inaan waxaa mar qaar waxa loo baahay maskaxdeena inaan qorno waxa weeye wixii waxaa la rabaa in xataa waxaa jirta marka qaarkood waa la qariyaa waxaa la qariyaa waxyaabaha secretka waddanka waa la qariyaa waxyaabaha waddanka dhib u keena dhaawac u keena waa la qariyaa marka qaarkood isla xisaabtanku marka waxa weeye waa two way laba wado weeye xisaabtanku hay-adaha dastuurka noo dhigaaya xaq baa u leenahay maalo baa u yeernaa wasaaradaha haddaa u yeeri weysid dastuurka noo dhigaayo kalsoonida lagala noqon karaa wasiirkaas macnaa qofkaas shakhsigaas wax kaliira wey runtii wax badan ayaa qabsoomay hadda sessionkan hadda aan ku jirno macnaha kalfadhigan waa ka xumaaya ama waxaana soo kala dhexgalay wax yaroo laakiin kalfadhi wuxuu ahaa runtii mashquul ah aniga guddiga difaacaan ku jiraa maalin dhaweed waxaan qabanay si dad dhegaysi dadweyne ugu horreeyey weligeed guddi qabta ma jirin waxaan ka hadlaynaa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida yaa arkay ma aqaan meelahaasaan dhalinyaradiina ku qabtay ma aqaan meel mashquul ahaydeen malaha marka waxaan ku qabanay dadka sidaan oo kale jaamacadaha ardayda dadka shacabka askarta u yeernay sharcigaan qornaa hadhayna sharcigaana qornayo waa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida sidee u aragtiin nala soo fiiriya fikirkiina keena because sharciga markaan samaynayno kow akhrinta koowaad markuu maro oo baarlamaanka laga doodo ka labaad uu mara ka saddexaad inta la geen ka hor waa in shacabkii la wargeliyaa oo taladooda lagu soo daraa hadhow sharciga soo ku anfaco marka runtii xisaabtanka waa inaan xoojinaa waa loo baahan yahay in laanta fulinta la xisaabtama way ogol yihiin annaga laakiin waxaan laga rabaa la xisaabtan ku noqdo la xisaabtan ayna dan gaara ku jirin ay ku jirto danta Soomaaliyeed ay mar walba aan ka hormarin danta shacabka Soomaaliyeed mar qaarkood waxaan ka wada marka waxa waaye in la xisaabtama ma xuma laakiin waxa aan sheegaynina waa in noqdaan wax sax ah hadhow haddii kale laguma aaminayo baarlamaanku fadhi ku dirna ma noqon karo haddii la yidhahdo hay-addii dadka ugu sarreysay aqaldantayna yaa saxaya taan ka fakarna keliya hadduu baarlamaanka qaldamo wax sixi kara ma leh problem waay marka in aad loo ilaaliyo waay waana hay-adda keliya ee dastuuriga ay Soomaali ku meeraysan tahay insha Allah taala laakiin saasha xuseen waxaan u qaadanayaa inaan iscanaanano xilaameeda loo baahan yahay oo aan mataqaanaa in korjeerta badan haddaan ku daro T 4.5 see loogu gudbaa 4.5 idinka tahay gacantiina ku jirtaa hadda markaan ku leeyahay PR proportional representation taakada hore
horta xal baa loo arkay 4.5 qof ku qanacsan ma jiro ilaahayna waxaan rajaynaynaa maalin qofka shacabka Soomaaliyeed iyagu ay talada ku goyn doonto waana taan dhammaanteen ka wada shaqeynayno 2020 doorashada markay dhacdo taa naftirkeeda iyadoo ay tahay doorasho hal qof hal coda hadda inay idin sheega fiican laakiin haddana waxaa lagu salayn doonaa xisbiyada waxaa lagu qasbi doonaa inay 4.5 ay listi kusoo gudbiyaan fahmaysi macnaha maadaama weli dadkii baa qaar macnaa in laga qanciyo laga gudbo mudday qaadan doontaa maamaha caana jirta Rome was not built today magaalada Rome aan laguma dhisin dib u yigaleynta Soomaaliya dib u soo noqodka Soomaaliya midnimada Soomaaliya adkeynta Soomaaliya hal maalin laba maalin saddex sano ku soo noqon doonto laakiin maxaa nasiiba furaha iyo darawalka ila idinka tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed tihiin inta ardada ka soo qayb galay dhammaan horta aad baa u mahadsantihiin tan waa bilaaw xildhibaanka haddaan la kaftamo waxaan rabaa xaq dastuuri amiya ama doodaha ma aragtay baarlamaanka in ardada aan geyn karno si ay u dhageystaan ma ya imaan karaan sooma so great opportunity waa aan kaga shacabka Soomaaliyeed waa u furan tahay sooma waa kaasa xildhibaankan uu idin sheegay waa ka shaqayn doonaa waxaan ka shaqayn doonaa doodaha baarlamaanka inaad dhageysan kartaan niila geyn doono ma aragtay giving advice oo waliba facts and figure ku dhisan inaad ma aragtay siin doontaan insha Allah runaantii midaan hadda maanta bilaaway public lecture-da jaamacadda ay sameeysan ma aragtay waa caado hore u soo jirtay insha Allah xildhibaanka aad aan ugu mahad celinaynaa waqtigiisa xilli kuleela la jooga waa waxaan filaa inaad ka faa'iideysateen ona ma aragtay ardada kalena uga faa'iideyn doontaan oo walaalihiina waa mahadsantiin mar labaad ardadan waxay isugu jiraan semester 1 semester 2 semester 3 ilaa iyo semester 5 waa arda majuura u bisil ma aragtay abiskiliska nolosha ama banaanka ka jira bari inay face gareeyaan ka saxaan ma aragtay waxyaabaha ma aragtay loo baahan yahay wadanka in laga saxo soo marka xildhibaan aad u mahadsantahay thank you for your time aad u mahadsantahay thank you so much so official